maanta oo maalintii ugu dambeysay ah sida dadkii iga horreeyay dhan ay wada tilmaameen waxaan salaamayaa dhammaan dadka sharafta badan ee meesha isugu yimid oo ay madaxdooda dhan ugu horreyso haday tahay madax dhaqan iyo madaxda siyaasadda dawladnimada intaba waxaan leeyahay dhammaantiin wa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa inaan ku bilaabo warkayga mahadcelin aan u mahadcelinayo mu'asasada Macalin Nuur Maxamed Siyaad iyo khaliifka oo hogaaminayay oo sida deeqsinimada ah iyo soo dhaweynta iyo maqaamkan fiican dadkan maxaan ku yiraahdaa tirada badan isugu keentay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin guddigii farsamada qabanqaabadan muddada bilaha aad u fara badan ee la soo sheegay soo waday maanta meeshaan ku soo gunaanaday ayaguna sidoo kale mahad ballaaran ayaan u jeedinayaa intii farsamo ahaan ku dhex jirtay iyo intii dhaqanka iyo duubabka ee hagaysay ee hogaaminaysay ee talada marjaca u ahayd intaba dhammaan iyo siyaasiyiintaba waxaan leeyahay idinkana aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin guul ayaad keenteen waxaan sidoo kale rabaa inaan ayagana halkan ka xuso qurba joogta Soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta beeshan ayadana shirkan muxuu ahaay qaybta weyn ka qaadatay haday tahay tala iyo ra'yi iyo xoog iyo xoolaba ayaguna waa mahadsan yihiin meel kastoo ay caalamka ka joogaan inta kadib wixii haboonaay ee shirka laga dhihi lahaay oo dhan maalmihii la soo dhaafay ayaa laga yiri communique-gana waa loo akhrin doonaa wixii wanaagsanaay ee la isla gartay ah waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo laba arrimood mid waa mid local ah oo maxalli ah oo annaga noqoysayso oo qof walbo maanta meeshan soo istaaga ama 4 maalmood oo maanta ugu dambeysay meeshan soo istaagan oo ka dhawaajiyay waa xawaaye Banaadir State dawlad goboleedka Banaadir waay maalin dhaweedna waa sheegay haddana waxaan rabaa inaan ku celiyo xusuusta maqaamka caasimadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya dadka Soomaaliyeed oo dhan ayay ka dhaxaysaa go'aankeedana dadka Soomaaliyeed ayaa iska leh iyo ciddii kastoo ay u wakiisheen ayaa go'aan ka gaarayo dastuurku ku cayimayo ka heshiinayo ka wada xaajoonayo marka dambena muxuu ahay go'aan ka gaarayo laakiin dadkan malaayiinta ah ee magaaladan ku nool inay maamul yeeshaan oo maamulka iyagu ay rabaan ay ku qanacsan yihiin iyo hoggaanka ay rabaan ay sameystaan oo danahooda ay u dhiibtaan ay kula xisaabtamaan sida maanta dalka dacaladiisa kala duwan oo dhanba ay tahay taasi waxay u taalaa dadka gobolka Banaadir degan intaan meesha fadhiday inta ka maqan dawladdu dooray ku leedahay inay fududeyso inay sahasho wixii looga baahan yahay dadkan ka codsadaan inay la timaado laakiin talada lagu gaarayo sameynta maamulka shuruucda loo degsanayo dadka loo magacaabanayo ama loo soo xulanayo inay noqdaan hay'adaha kala duwan ee maamulkaas uu yeelan doono nidaamka iyo sharciga iyo waxa isku hagaya dadka maamulka gobolka Banaadir ku nool lagu dhaqayo waxay ka go'daa waa dadkan ayaga iyo inta kale oo maxaan ku raada maanta aan madashan fadhiyin laakiin caasimadda magaalada Muqdisho degan ayay ka go'daa waxaana la rabaa in ay isu yimaadaan ay ka tashadaan go'aanna ka gaaraan sida ummadda Soomaaliyeed ee meel kasta degan gobol kasta degan jamhuuriyadda ay go'aan uga gaareen maantana ay muxuu ahay ugu shaqeynayso ayaguna inay u shaqeysaan la rabaa insha Allah waana u shaqeynaysaa taas waxaan rabaa dadku inay ku seexdaan kuna soo toosaan iyagay sugay cid kale ugu maqna iyagay sugay dadka gobolka Banaadir degan oo la maamulaayo ayay sugay inay sameystaan waxa ay rabaan maamul uu leeyahay waa noo jooga haddaba inta karaankiisa ay dadaalkiisa u qabtaa sharaf waana soo lahaa jirnay maamul gobolka Banaadir haddana waa noo jooga oo meesha cidla ma aha laakiin nidaamka dalka isbedelay gobolka Banaadirna la jaan qaaday oo ay ka mid tahay ciidan hadii aan leeyahay taas marka waa tii localkeed intaasaan uga baxaya haddii aan u soo noqdo midda nationalka ah dabcan horena waa looga wada hadlay horena halkan waa ugu sheegnay dalkani dawladnimadiisa wax waa ka dhiman yihiin laakiin meel aad iyo aad u fiican ay joogtaa safar dheer oo ay soo gashay burburkii 30 sano ka dambeeyay 20 sano ugu dambeeyay maamul dawlo oo mar walba soo horumariyo saaka halkan aad looga sheegay
waxyaabihii waaweynaay muxuu maamulkaasi uu soo maray iyo waxyaabihii u qabsoomay hoggaankii iyo xukuumadihii kala duwanaa ee dalkan soo marayba horaa loo sheegay lagu noqon maayo taas markaa wanaaggaasi inuu meeshiisi ka sii socdaan rabnaa inuu hakada ma rabno in la carqaladeeyo ma rabno in maxaan ku raadaaye muxuu dib loo celiyo ma rabno in magac xumi ay u soo kororto ma rabna inay magac qurxoonaan iyo wanaag u sii korortaan rabnaa ayada oo lagu saleynayo mar walba laba arrimood mid waa wixii aan ku heshiinay ee noo qoran inaan dhowrno sida ay yihiin ugu dhaqanno wixii aan ka weyno warqadihii aan heshiisyada ku qorannayna inaan isaga nimaadon ka tashanno see yeelnaa aan dhahno waa hubaal si aan yeelno inaan helayno waa arrinta marka muxuu ahaay aan labadaas ayaa muxuu ahaay quruxda maanta jirta ay ku timiday labadii baanay ku sii socon kartaa intii muddo ka bacdi waa laga yaabaa wax kastoo maxaa yimaadaba in xeerarkeenna wax ay qorayaan oo ay qeexayaan oo aanba u baahnayn hore looga tashaday oo la isku noqdo ha laga tashado la yiraahdo inaanan loo baahana laga yaaba laakiin aan gaarna meeshaas aan gaarsiino waa u sii dhawaanaynaa maalinba waxbaan samaynaynaa waxaan rabnaa xilligaanoo kale markii ay tahay dhaqanaa jiray dowladnimaduna dhaqanay leedahay sideedaba xilligaanoo kale marka la joogo ma aha xilliga shuruuc ha la sameeyo hay-ada ha la magacaabo wax ha la dhiso inta ha laga boodo xagga ha laga dhaca la yiraa ma aha xilligaanoo kale waxa waaye xilliga la yiraahdo war waxa yaynaga kala baahin oo naga kala daadinina aan tubtii ay lahayd aan marsiino xilliga la yiraa waay hoggaanka dawladda ee maanta jooga iyo xukuumaddiisa iyo madaxdiisa iyo mas'uuliyiinta joogto dalka marna inuu marnaado oo marnaani ay jirta maaha laakiin dee wax kastoo joogahay maqaam iyo magac iyo wax loogu talagalay shaqo ay leeyihiin xukuumadda maanta joogto meeshaasay ku aadan tahay ha ka soo baxdo ha hagaajiso ha iska ilowdo waxyaabaha aan dadkaani aqbalaadooda aanay ku imaanayn wax kasta oo dadkaani aanay aqbalina sharcina maaha qaanuunna maaha mana dhaqan geli karaan dadkuna xilligan la joogo waxay aqbalanayaan waa la garanayaa mas'uuliyiinta maanta joogta ha ka hadlaano hana ku mashquulaan waxaas wax kale yaani ku mashquulin oo maxaan ku yiraahdaa waqtigan uga dhumin ayaguna aanay karaamadooda wax ku gaarin taasna ayadana intaasaan ka leeyahay waa u fadhinaa waa sugaynaa shaqaan diyaar u nahay waa shaqaynaynaa waa soconaynaa Soomaaliyana horay u soconaysa waanay guuleysanaysaa haddii aan la yiraa waxyaabaha kale ee tahdiidaadka iyo muxuu ahay magaciisa wax ka soo qaad ma laha sheegidna ma laha siyaasadna ma aha marka muxuu ahay waxaan leenahay dadka codkiisa ha la dhageysto hana lagu dhaqmo haddii aan la yiraa lagu go'aan qaato rabitaanka dadka iyo ugu horeyso wixii ku heshiiyeen loo ilaaliyo iyo wixii ka dhiman oo la jiro taas intaas rabaa inuu ka baxo waxaan rabaa meesha inaan ka xuso oo fariintiisa aan ka soo gudbiyo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo ay soo wakiishay maanta hawl kale oo muhiim ah oo shirkaana muhiim u ah dadkaana muhiim u ah Soomaaliya oo dhanna muhiim u ah ayuu noogu maqan yahay oo aan ku ognahay u dirsanay sidaas uu soo gaari waay halkan annaga wakiilka salaanan idinkaga sidnaa wax allaale waxaad maanta meeshaan ku go'aamisaan muxuu ahaa dhinaciisa ka xambaaraya haddii aan la yiraa uu leeyahay waana idin soo salaamaya madaxweynaha haddii aan la yiraa mar kale mahad ballaaran ha gaarto dadkii nidaamkan iyo gogoshan isku soo waxeeyay sharaf iyo karaamo badan farsamo ahaan iyo caqli ahaan iyo marjac ahaan intii u suubisay aad iyo aad ayaan u hambaliyaynayaa maanta hadalladii meeshaan looga dhawaaqay waxaan soo dhaweynayaa asna hambaliyana u dirayaa muxuu ahay madaxweyne Cali Mahdi Maxamed oo mas'uuliyad gaarana maanta meeshaan looga dhawaaqo laga saaray annaan diyaar u nahay annagana mas'uuliyadaas inaan la qaadno oo culeyskeeda iyo maxaan ku yiraahdaa miisaankeeda aan la gelino waxayna daliil u tahay isku toosnida dadkaani sida isugu soo toosayaan maalinba maalinta ka dambaysa isugu soo toosayaan ayay daliil u tahay aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh